xildhibaan cabdirashiid faarax cali oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Burco warfideenka kula hadlay gudaha magaalada ayaa waxa uu raali gelin ka siiyay gudoomiyaasha asxaabta mucaaradka ee siyaasadda Soomaaliland hadal dhawaan ka soo yeedhay duqa degmada Burco kaas oo gudoomiyuhu ku sheegay labada xisbi mucaarad inay yihiin shirkado gaar loo leeyahay xildhibaanka oo ka hadlaya ayaa waxa uu yiri hadduu maayirku gartay isagoo xisbi muxaafid ah inuu dhaliisha dawladdu leedahay xisbiyada ka gaabiyeen uu sheego oo uu baraarujiyo waa muwaadinimada adiga adigoo mucaarad ah iyo adigoo muxaafid ah inaad labadaba taabato maayirku taas ku hambalyeynaya waayo wuxuu arkay xisbigiisii iyo xukuumaddiisii uu ka soo jeeday dhaliil ay leedahay oo xisbiyada mucaaradkuna aanay ka gaabiyeen waxsheegeedii saddexda xisbi qaran ee labada xisbi mucaarad iyo xisbi muxaafidku waa institution bay ku dhisan yihiin waxa ay ku sameeyeen distory oo qodob waxaan ku wada distoorku u sharciyay oo ay ku fadhido Soomaaliland oo dhigaya astaanta iyo horusocodka iyo himilada qarannimada aynu sameysannay ay kamid yihiin inay yihiin saddex dhadhaaro la isu dheeli tiray oo sharciyad ku dhisan oo doorasho iyo golo dhexe iyo leh cod kana soo baxaan mustaqbalka iyo hoggaanka madaxweynayaasha dalku marka halka maayirku uu runtii kula taraaray arrinkaasina ma aha arrin ah xisbiyada qaranka ee isbedbedelaya in lagu tilmaamo shirkado bareefada ama meel aan sharciba ool waayo wuxuu maayir ka soo baxay raais wuxuu yimi kulmiye waxaanu ku dambeyn karaaba ucid labada xisbi gudoomiye xisbi mucaarid iyo taageerayaasha xisbiyada mucaaridka ee ucid iyo wadani iyo golayaasha dhexe ee labada xisbi iyo golaha iyaga deegaanka ee ka soo baxay xisbiyada mucaaridka ee la fadhiya maayirka ee garbihiisa ah ee kulaalayo raali iyo xaal iyo apologies baan ka bixinayaa runtii waxay ahayd taasi xanguruufo ka timi maayirka oo uu ku sameeyey xisbiyada Faysal Cali Waraabe oo kale waa gudoomiye xisbi waana mustaqbal madaxweyne waana nin haw soo jiro Soomaaliland asadkeeda ah in badanna u soo halgamay siyaasadda nasiibkiisina aanu kursiga fadhiisin laakiin ma aha dumiye Soomaaliland maayirka qudhiis waxaan ka sheegayaa inayna noqon inagu qudhayno dumiyad Burco dadka mucaarad iyo muxaafid ba cashuurteen ka guranaa dakhli bay noo soo xareeyaan waanay wada nool yihiin waa dad walaala ah xilliga siyaasadana waxay u kala guuran xisbiyadooda iyo taageeradooda taana maayirka waa iga talo waxaan kaloo maayirka xasuusin lahaa 10 xubnood baan ku fadhinaa golaha deegaanka oo labada xisbi mucaarid ka soo jeeda maayirku markuu xisbiyada dhaliilaya ama canaananayo waxa ka fiican marka hore inuu annaga wixii dhaliil noo sii faro warday istoosiya oo halkaas ay sida ka dhiga ma aha annaga oo fadhina oo runtii sharaf iyo karaamo ka mudan in xisbiyadii siyaasadda annagu xisbi siyaasi baan ahay waxaan ka soo baxay xisbiga aan ka soo baxay waxaan ku beeray xisbi kale xisbi dambaan ku dambeyn doonana Allahu yaclam inaan kulmiye ku dambeyn doono horena waan u ahaa imankana wadani baan ahay midaan ku dambeyn doono la garan maayo xisbiyadu karaamiga mudan yihiin iyo sharciga institutionka ay ku dhaqan yihiin dalka u yaala taana maayirka waxaan kula talin lahaa inuu xildhibaanada ku ixtiraamo markasta oo xisbiyada la hadlayo ugu dambeyntii xildhibaan cabdirashiid faarax cali ayaa talooyin u soo jeediyay duqa degmada Burco waxaana uu sheegay in muhiim tahay hogaaminta isla markaasna isku wado dadka uu maayirka u yahay duqii magaalada waxaan loo dhaariyay dhammaan degmada waxa ku nool ama gobolkaba inaan xisbi hadduu xitaa invitation u keeno xisbiga aanu ka maqnaan ka qayb galo ku soo dhaweeyo isaga tago aanu ka hadal ka qayb gal ma inuu u furo way degmadiisa isaga la furitaanka xiritaanka isaga leh ama haddii aanu tagayn ama furayn inuu maayirku ka gaabsado dhaliisha inuu maayirku dhaliilo xisbiyada mucaaridka waa sax laakiin waxa la dariiqyo loo mariyo ma aha in lagu tilmaamo shirkado bareefada haddii xisbiyada mucaaridka ay noqdaan shirkado bareefado dad gaar ah leeyihiin xisbi qarinkuna wuxuu noqonayaa NGO dawliya ayuu noqonayaa وخالد بكيلي ورarka fogaan araga xorta Star TV Burco